muuqaal ahaan 5 sano ee u dambeysay ciidamada xoogga dalka way ka duwan yihiin sidii hore. xarumaha tababarada ee ciidamada xoogga dalka waxaa ka dhex muuqda macallimiin Soomaali oo aad u diyaarsan inay soo saaraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo awood u leh inay gutaan waajibaadka qarankooda. dadka waayjooga ayaa tani ku tilmaamaya in Soomaaliya awoodeedii ay waqtigan dib u soo laabatay, waxaana ciidamadan ay bedel u noqon karaan ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya in ka badan 10 sano. dhamaystirka qalabka iyo tababarka ciidanka ayaana wadanin xuquuqda mushaaraadkooda oo dhammaystiran, waana taas sababta keentay in kooxaha la dagaalama dawladda ay awood u yeeshaan inay ka fuliyaan weerarada iyo dilalka qorshaysan guud ahaan Soomaaliya. ciidamada xoogga dalka waxaa sanadkan ka dhex muuqda dhalinyaro aad u da'yar oo iskugu jira rag iyo dumar, kuwa waliba soo dhameeyay qaarkood heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda, waxaana Soomaaliya lagu tilmaamaa 70% dadkeedu inay ka yar yihiin 30 sano. taasoo micnaheedu tahay in dhalinyaradu aad ugu badan tahay waddanka, waana fursada kaliya ee u bannaan dawladdu inay ka faa'iideysato awoodda dhalinyarada, taasoo ay ku soo ceshan karto awoodda iyo qarannimada Soomaaliya.